السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسحن ميديا جروب haddii aan badan aragteen anagoo qoslayna anagoo fadhina anagoo badan wax su'aalo isweydiinana qaraaxaysanayna xaraabaysanayna hadda xaaladdu sidii hore ma aha hadda keligay bay aragtaan guri kuma jiro meel ma fadhiyo laakiin haddana waxaan jeclaystay maadaama imika aynaan is arag dhowr beri aynaan is arag ama dhowr maalmood aynaan is arag inaan ismaqalo is aragno iska warhayno waxa asxaabtii kalena iyaguna sayda anigu keligay u ahay ayuu midba meeshiisa u joogaa sheekada baaran xeeran dadkii maxaa ku dhacay xaggee aadeen si kale maaha waxa weeye xanuunkii xumaa ilaahay caafimaad hana siiyo dhammaan iyo intii kale xanuunsanaysaba ayaa qofkaayaba meel ku xidhay qofkaayaba hadda meel ku xidhay isma soo maxay ahayday isma soo booqan karno waxba ma wada duubi karno muddo imika wii ku dhow imika maanaas arag waxa weeye qof kastaaba meeshiisa ayuu ku yahay xabsi dee waa xabsi furihiisa oo haysto yuusuf gooni idle gooni injineerkii gooni qofba horta meeshiisa meel buu gooni uu kaga jiraa de waxa weeye horta caafimaadka ilaahay waa bixiya hadda waa fiicannahay maasha allah dad badan oo asxaabtii iyo familigii baa naga soo wardoonay see tihiin ma fiicnaateen haa maasha allah boqolkiiba boqol waa fiicannahay sidoo kale imkaakaad ka hadlaya dee waa dhaxani jirto xoogaa dhaxani yara jirto waayo anagu meeshaan joognaa waa iska barafley laakiinse haddana dhaxantaan maadaama aan guriga ku jiray meel loo baxana aanay jirayn dee aan meel loo baxa xaggaad aadi kelina aad tahay haddaas tahdo yaro soco hataa aad keli noqonayso aad jeclaysanayn ana qof keli u bartay oo keli socda ama keli ma isla sheekaysan karay waa isla sheekaysanaya ama maayn haddaa keli socdo dee qofkan waxaa la yidhi hadduu isla sheekaysta qof kastaa waa isla sheekaystaa baa la yidhi laakiin waxa weeye waa hadalkii maskaxda aad ka haysay oo kor un kaaga qaadmin baa dadka kale kula maqleen laba su-aalood isweydiisan weeye oo kor kaaga yara qaadmay markaasaa daraaddeed haddaan xisa dad halkaa marto waxa la odhan doonaa kii waa kaa isla hadlaya oo xanuunka waa kaga khayrsiiyey keli uma baran marka waxaan jeclaystay kolleyba haddaan hadli lahaa hadalkaygu uu maxay ahayday bannaanka usoo bixi lahaa inaan anigoo idinka idla hadlaya inaan hadlo waxaygaan ku qarsanaya halkan badanaa beer kale dee ma aado intaan maraya waayo dadka waad iska ilaalinaysaa waayo meeshaan degannahay horta inkastay iska cidlo tahay xaafad ka baxsan magaalada ay tahay haddana waa inaad iska eegto dadkii aad iska eegto halkan baad marayaa qof allaale qof meesha ka soo socda ama sii socda ma jiro markaasoo kale waxaan sameynayaa waa gurigeyga agtiisii laakiin waa cidla waktiga fiidka oo kale aan meeshu aanay cidi joogin meesha iska cidlada tahay baan banaanka loo yaro baxayaa si aanay dad ula kulmin marka asxaabey hortay intii caafimaad qabta xanuunkan aan ilaahay u keenin horta waa maasha allah intii ka ladnaatay waa maasha allah intii heesa ilaahay caafimaad deg deg ha siiyo intii inagaga baxday xanuunkaas de ilaahay sabab uga dhigay de qof kasta waxa weeye
saacadiisu meel bay ku qoran tahay, waqti bay ku qoran tahay, sababna way u qoran tahay wax uu ku bixi doono. ilaahay baa taa qoray oo meel dhigay, oo qof kastaba wuxuu ku bixi lahaa sabab la'aan. qofna dee qof kasta sabab ayaa lagu iyo waqti baa lagu calaamadiyey, lama dhaafi karo. balse haddana dee waxaan baan dhahnaa kulli qofkaas saas uu ku baxay, saasaa dhacday. muhiimaddu waxay tahay timahayga maxaa ku dhacay? sababta horta waxay tahay in horta bal dadku marka uu xanuunka uu isaga shakiyo ama uu dareemo in qofkan xanuunkan uu hayo, inuu intuu la kulmayna uu gaadhsiiyo, uu dhaho saasa dhacday, xanuunkaasaa laga helay. ama yacni isi soo baadh, ama 3 maalmood ugu yaraan gurigaaga joog, bal isbaxnaani inuu xanuunku kugu soo baxin kara, maxaa dareemaysaa? horta inuu wada hadal la sameeyo ayaa fiican. kule inaguna Soomaali baan nahay, haddii uu qof qaado waa og tahay inta qof, haddaad adigu qaado adigaaga ay daawanaya, haddaad keligaa qaado inta qof ee aad la kulanto wiigii ama 3 maalmood, 3 maalmood ka soo qaad, 3 maalmood imsa qof baad la kulmi kartaa oo Soomaaliya, dadka kale iska dhaaf, oo Soomaaliya imsa la kulmi kartaa, lama qiyaasi karo, aad u badan yihiin. sababtaa darteed baa waxaan idin sheegayaa inaydaan marka aad dad la kulantaan isku daya xasuustiinii inaa maalin saacad ugu qaadaan maskaxdiinii maalmihii aad soo dhaafteen oo dhan, dadkana aad ogeysiisaan inta qof aad la kulanteen, aad ogeysaan war saasaa dhacday, walaal isbaadh, walaal isbaxnaani. kuwo badan way kaa dhaga adeegayaan oo maanta kulmayna maalin hore ahayd, waxbaan isku markin iyo waxma qabaan, anigu waxma qabo war ama qab ama ha qabine, way fiicanta in aad qabin, laakiin hortay ma isbaadha seed ku ogaan kartaa inaad qabin? calaamad iskama arag. way jiraan dad aan calaamad iska arag oo haddana xanuunkii qaba, way jiraan. okay, sax, dadna calaamad bay iska arkaan, dadna dee iskama arkaan. adigu marka calaamadii dee iskama ad arag, laakiin xanuunkii inaanad qabin maaha, dee waad qabtaa xanuunkii haddaad doonto, amaba de ilaahay dhinac buu kaa dhaafiyey. laakiin muhiimaddu waxay tahay inaad horta isbaadho oo baadhitaan aad marto. dee midda kale annaga halkan aan ku noolay, waddankaan ku noolahay, ma ka jirto wax lacag la bixinayo. dee horta ma malanaya waddamada qaar inay ka jiraan, ma garan karo. laakiin halkan baan ogahay, markaad ballanta qabsanayso xataa 10 daqiiqo ka hor markaad qabsado, xataa imika markaan shakiyo 10 daqiiqo kadib xataa ballanti waan helayaa meelaha qaar. 10 daqiiqo kadib ballanti waan helayaa, waa iska qaadi karaa. hadday igu soo dhacdo waa 10 daqiiqo, waa intaan usii socdaa laga yaabaa meesha aan iskaga qaadi lahaa. maxay tahay markaa? wax dee saa u adag maaha. lacagna laygama qaadayo inaan iska qaadayo, shaybaadhka lacag layga qaadayaa maba jirto. marka maxaan u hakranayaa? maxaan u diidaya inaan shaybaadh iska qaado? so aniga ima fiicna dadka aan la kulmayo iyo asxaabta iyo ehelkaygana soo ma fiicna. bakayl haddaan ahay waryaa, bakaylnimo waxa weeye irbaddu waa bilaash, waxaan leeyahay shaybaadhku waa bilaash. marka haddii aad oran lahayd una lacag baa lagaa qaadayaa, lacag ma jirto. haddaad sanaa waqti dheer buu kaa qaadanayaa, waqti dheer ma jiro, 10 daqiiqo. haddaad oran lahayd waa lagula yaabaya, wax layskula yaabo maaha, wax layskula yaabo ma aha. haddii aad oran lahayd shaqadaadaad ku beeraysa, waad ku shaqo beeraysaa, adeerow naf aad badbaadisaa ka fiican. ya si kastaba marka loo eego, hortay khasaaraheeda iyo faa'iidadeeda badan. bakayl maalin aad ka dhacdo oo shaqada ka dhacdo oo aad iska soo qaado shaybaadhka iska soo qaado,
positive haddaad noqoto 2 maalmood ama 3 maalmood 4 maalmood 5 maalmood guriga joogto aad nasato meel ku fiicneen adiga qudhaad xataa si kuma fiicna marka waxaan garan waayay Soomaalidu si khaldan u fahanto horta xanuunkana si khaldan ayay u fahansan tahay xogaa soo laabtay maarta timahayga xataa baraf inoo maarta سألني سمعت بسم الله واحد برف برف تو مو في عين حنوكم سكر الخوف ما قرناه waxaan ka wadaa Soomaalidu waxay sida ay wax xanaaqdo xanuunada bini aadan dad wax xanaaqa horta ma jiro dadka kale ee adduunka ku nool qof ka xanaaqa ma jiro okay waxay u qabaan xarunka imika socda coronavirus haddii uu qofka ku dhaco ma qornay qofkaas anigu ma qabo ma qaadin weligay ma qaadin ma yani waxa daaban in qor lagu hayaba ma qaadin weligay ma qaadin ma qabo imikana okay war haddaad qabto cid wax ka qaadaysa malahan waa adigu un bay ku taalaa haddii aanad qabinna ilaahayba kuma keeno haddii aad soo qaadayna maasha allah ilaahay kaa caafiyey ayaa mahaddaa leh ilaahay ow adaa mahaddaa leh dadka ka baqin ta kale marka meeloo kale laga wareysanayo oo kale wareysi dadka waxaa laga qaadanayo ama dhakhaatiir la kulmayaan tiibisho ma qaaday may warigi tiib ma qaaday magidibo AIDS ma qaaday may AIDS ma qabo marka yani qofka adigoo haa iyo maya ay meesha taalaba maxaad u naxaysaa maxaa kaaga gariirinaya maxaad la gariiraysaa maxaad la cabaadaysaa haa iyo maya meesha kuu taala ma qabtaa maya hore ma u qaaday maya ama haa bes maaha xanuunku waxa adigu dooratay ma aha wax ilaahay kuu qoray wax wareegay wax soconayay dadka qaaday baad ka mid tahay dadka ka bogsaday baad ka mid tahay dadka u haya baad ka mid tahay waa caadi wax dhibaato ma jiraan so naga hagaajiya caadi iska dhiga reer xanuunka dide sas baa idinku wada mudane marka horta anigu waxaan jeclahay inaan maxay ahayd kolley iska gudbiyo inta aan karanteerka ku jiro 2 maalmood baa iga hadhay beriya saadama iga hadhay ku sii jiraya ruuxanayg tan baa coronavirus maarta برف ويه انت ماشي تاغنا imika dadka guriga hortiisana waxaa برف marka in yar hadaan taagnaado waxaan taagnaa 13 daqiiqo okay taas aan noqonaya hadaan taagnaa 20 daqiiqo laakiin yeelkeed tama xiranaya muhiimaddu waxay tahay labada maalmood ii hadhay karanteerka iga hadhay haddii aan wax xumada isku arag xumad haddaan isku arko 2 maalmood kala dib sii joogay guriga ilahay laakiin saahiga ka xeeyo xogaa cabdicabro waa dareemaya laakiin sa kale maasha allah marka reer xanuunka dida joojiya waxaan joojiya badanaa haddii aad xanuunkii maanta tiraahdo xanuun ba hayo qof aad ku dhahdo imse qof aad caawisay habayaad ilaahay baa badbaadiyay laakiin imse qof aad caawisay oo guryahooda jooga oo ku iman lahaa ama aad la kulmi lahayd haddii aad tira xanuunkaasaan qabaa oo asxaabtaada u sheegto imisaa suuqa kugu salaami lahaa imisaa suuqa kugu salaami lahayd badbaadisay aad caawisay imisaa gurigaaga ku iman lahayd caawisay imisaa meel isku arki lahayd inaad caawisay dad tira xanuunkaasaan qabaa gurigaaga joogtaa kii guriga ku iman lahaa ku iman maayo haddiiba aad khaldanto oo banaanka u baxdo kii kugu soo leexan lahaa ee gacanta kugu istaagla ama ku iman lahaa haddaad tiraahdo ogi in xanuun qabto uu kaa dheeraanaya so intaasoo keliya marka laga soo qaado ayaabaa waxay tahay wax weynba marka asxaabteeda waxaan leeyahay
horta soomaalida ha loo gudbiyo tan waa muhiim waa muhiim soomaalida waa ina gebigeedaba ku wada dhaqanto waan ka dhashay soomaaliyo waa ka dhashayoo waa ku dhex jiraayo waa ahayo dhiigoodi bay ku jiro waa garanaya inaysan yihiin waa ogahay inaysan yihiin ma diidi kartid adeerow ama eedo ama taan adeer ku ahay waxa weeye ma diidi kartid oo wax jira soomaalida laba way jecel yihiin horta qabiil way jecel yihiin waa kow qabiilkooda in la weydiiyo alla se u jecel yihiin ya ta labaaday jecel yihiin mataqaanaa waad yar tahay bay jecel yihiin adigu waad yar tahay hadda kahor islaam baa dukaan bay haysato markaasaa meelaha dukaan maka dhow wax ka iibsado mid baa haaye dukaan kasoo iibso laakiin walaaliyo waxaa way ka xanaaqdaaye islaanta waxa ku tahay eedo walaal iska ilaaliyo ka xanaaqdaa walaaliyo waxaa ka xanaaqdaa iska ilaaliyo anoo dalaq leh eedo ma haysaa waxaasoo yaa ku eeda nacala adigiyo waxaa tiba ku yaalla bow kab duulaysa marka horta soomaalida da'yarna way jeceshahay qabiilna way jeceshahay labada u nacab tahayna xanuunsanaya ama qofka xanuun baahaya horta way nacab tahay si caafimaadka loo hayo iyo xanuunkaba ta kaloo ay nacab tahay oo aan laga soo xaggooda laga soo marin waxa weeye qofkaas uu kaa weyn yahay ixtiraam qofkaas uu kaa weyn ixtiraam see kaaga weyn ku leeyahay ama adiga qudheeda waxaan see kaaga weyn aan waray adiga adoo aabbaatay intaa soo carruur haddaad guursan lahayd waqti hore haddaad guursan lahayd ee carruur dhali lahayd bad baad gelaysaa ma ogta marka ilaahay baa caafimaadka keena ilaahay baa da'da keena waa wax labadaba la gaarayo marka insha allah bal hortay qabiilkana kulley wuu dhiiggii naga raacsan yahay marka insha allah hortay waxaan kulmi doonaa insha allah mar kale jawi ka bedelan waxaan rajaynaya ilaahay idinkana inuu caafimaad sareecana ay ugu wada nooshihiin oo igu faraxsan tihiin annaguna aanu ilaahay waqtigan adag iyo shucaacan aanu ka soo baxno dub mar dambe kulanno annagoo faraxsan idinlan kulanno idinkoo faraxsan insha allah intayna mar kale kulmi doono haddaynu noolahay waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu